haddii ayna ku bilaabno dalka Talyaaniga ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay dalka labaad ee caalamka ee fayraska corona uu saameynta ba'an ku hayo marka laga soo tago dalka Shiinaha toddobaadkan waxa ay bilaabeen ayaa leeyahay inay karantiilaan rubuc dadka dalkaasi ku nool oo dhan tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo ay tirada dadka qaba fayraskan ay aad u sii kacayso iyadoo axadii dhimashadu ay gaartay 133 qof iyadoo dadka uu haleelay fayraskanna ay aad samada u sii galayso haddii aynu eegno waxaa lagu soo waramayaa inay qaadeen ilaa iyo hadda 7,000 oo qof oo Itaaliyaan ah dhimashaduna ay marayso 366 qof ilaa iyo hadda waxaana la soo rogay tallaabooyin adag oo lagu yareynayo kulanka bulshada haddii gaar ahaan gobolada waqooyi ee dalkaasi Talyaaniga halkaasi oo ah meesha uu sida ba'an uga dilaacay xanuunkan Cabdiraxmaan Bidaan Xaaji Daahir ayaa inoo faahfaahinaya waxaad moodaa muuqaal riyo xuna oo Talyaanigu imika ku nool yahay waxaa gudaha lagu moodgareeyay nin 62 jir ah oo fayrasku soo ritay weli lama xakamayn fayraskan dilaacay karukaca kiisaska fayraska ayaa keenay in la qaado tallaabooyin adag oo aan hore loo qaadin tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka caasimadda dhaqaalaha Talyaaniga ee Milano waa cidla albaabada ayaa la isugu laabay iyada iyo 14 gobol oo kale dad gaadhaya 25% dadka Talyaaniga ku nool ayaa la karantiimeeyay magaalada labaad ee Talyaaniga oo ahaan jirtay meel camiran ayaa imika haawanaysa iskuulada iyo jaamacadaha ayaa la xidhay ilaa bisha Abriil waxaa kaloo albaabada loo laabay shineemooyinka iyo balliyada lagu dabaasho ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa ka hadlay xaaladan cakiran waxaana la soo gudboonaatay xaalad degdeg ah waxaynu qaadaynaa tallaabooyin taxadar ah annagoo la soconna waxa dhacaya Venice waxay ka mid tahay meelaha socodkooda la hakiyey waxaanay ahayd meel ka mid ah xarumaha dalxiiska ee Talyaaniga cabsi ayaa looga yaacay markii aanu ka socdaalay Roma ee aanu xagga waqooyiga u baxnay waxaanu filaynay control adag laakiin waxba maanu arag imkan waxaanu soo galaynaa Modena oo ah soonka la xayiray isu socodkiisa waxaad arkaysaa inaan bando rasmi jirin ma jiraan bara control oo boolisku leeyahay tusaale ahaan waa goob weyn laakiin dadka ayaa waa dhul ballaaran laakiin dadka ayaa loo sheegay inaanay bixin soona galin deegaanadan dib ayaanu u noqonaynaa waayo haddii kale aagii karantiilaha ayaanu galaynaaba xarunta Vaticankana habkii wax lagu baahin jiray soo jireenkaha ayaa wax iska bedeleen baadariga Pope Francis ayaa ka soo duceeyay video iyadoo awal uu ka hadli jiray barxadda St Peter's oo halkaasi dadweynuhu isugu iman jiray sida doontaba ahaatee kalsooni badan lagama qabo in xaaladan degdeg looga gudbi doono